jogi kuruski irkajiro jadalada kalgacalkale sida qalin jogi kuruski irkajiro شبيه توبتي قلم لقم تنفعوا لتبتي تكوت غباني وهي وجيل نوبا نفتكوت غباني وجيل نوبا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موجي نحيسا هذا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موجي نحيسا نفتكو ترباني يوجي لنوغا هوي نفتكو ترباني جيتي معاكي وصوتي حنجحو موجي نحيسا هذا جيتي معاكي وصوتي حنجحو موجي نحيسا رئيس وزراء كبريان عن عبد الوهاب أو رئيس السكرتير بنك الكوبات لما كان وزير كجناح سيئة وشدها وهرم ملمو وعسير ترسل دويننا أمباسطور نور حسن حسين وسفير كسوماليا وفرديا وطلياني مقالة روما هذا ما تنتهي هذا يقول هذه يرى كي بحرين هي وأنا قبسنا هي هذه أنا مفرحسنا كنتي عاوة إن يعني كل كان فيما يقايع عليه وعاد يعني أبو طريق الشين وفتي وقابلنا رئيس الوزراء الصومالية البروفيسور عبد الولي محمد علي وما تنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوزراء حكومة الكوميديا مدير البروفيسور عبد الولي محمد علي قاس سفيرك نور عبد هو دلو يوروب استمر كان سفيرك الموفدية ودك الريالية سلادينتا علماء ويوينكا ورياشا تغييردا بعض الصحافة يفنانين تروحون السلام يا سلام الإسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله فرحان ويلي أنتي ونسلاه لغة حوض الغنية إن أنا وجياء ومرتضى ورولول ويا سما كان كسيدا اسكندنافيا كا ونفط جدوان هيديك الوضع في السويدان أنتي بعض حسنا يقولوا زاري إن بدن يوحى من يد بدن وأنتي له في UK يلوث أمريكا كلها كريماتي أيها هذا هو فرعون أي كريماتي لين الصومالية بس عادها حتى كتاي الرئيس كندنافيا أي رنتي آل وصوبهان يهين الوضع هذا الضريق فرنا وحياتها هي المزارين بسويسين وبحنا نسينا إياه أنا نفسي بحاجة شيء لغة والبهار وحاجة هي السويدان يوحصلنا إدامة أنتوا الوزراء مالين وحاصل هذا الأصل مالين وحرية بيني لها مرة مع هتاني فريق علينا السبيل هذا يسأل هل الوزراء الحكومة الأولية الميكروفون كثير على طلبة قيمها حكمتها أطلعه رأس للرجال هيكون الإسلام
وتشلي هذا اللي هو كشلي نزل وزارة كحولين كأهل وسيلة كنحسجة في وشدها عبد الوهاب واس حسين واس شريف أمبارشتوك نادي جريه EU في إيطالي نور حسن حسين أهل برايم مستر كيدي هوري حلوان ياسين عبد السيد يريسو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أمر تدامي ودن كنوروي مثلا ومحي odayaasha dumarka dhalinyarada waxgaradka bada saxaafadda dadweynaha reer Norway reer Oslo maanta aad farxadan iyo xafladan qiimaha badan u soo dhaweeyay waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahadweyn u naqayaa guddigii qabanqaabada xafladan qiimaha leh loo sameeyey mahad gaar ayaga loo siinayaa oo dib aad ugu mahadsan yihiin soo dhaweynta iyo Soomaalinimada iyo wanaagga ay noo muujiyaan iyo waqtigeygaba idinkana kasoo qaybgalka loo soo sharafteen maanta keenas dhageysano iswareysano ismaqallo aad baan naga mahadnaqaya waxaan soo kala mahadnaqayaa dowladda Norway oo runtii ah dowlad Soomaaliyana aad u taageerta aad uga shaqeysa hawl badan oo yani qayb kasta ha noqoto geedi socodka nabadda ha noqoto nabadgelyada ha noqoto dhismaha haykalka dowladnimo ee Soomaaliya runtii gacan naga siisa ahna wadamada kaliya ee qura aan dan gaar ah oo kala hayn Soomaaliya runtii aad loo taageera soo dhaweynta halkaan soo dhaweynta aad uga mahadnaqaya inay maanta idinkana hoy iyo waxbarasho iyo nolol aad wadankooda ka samaysanaysaan oo joogtaan oo sharaf iyo karaamo u nooshihiin ayadana aad loo mahadnaqaya intii hadashay intii shirtay intii baraabutay intii la soo dhaweysay iyo xafladii iyo giftigii qiimaha badnaa ay siiseen runtii aad baan uga mahadnaqayaa mardow walaalkay baa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi liido waa inaan ku dabaalanaa liido waa ku dabaalanay waa la artay aan daba qabsanay anaa waxaan oran jiray war cabdiwadiyow Soomaaliya sida ugu laabanaysaa wiil yar baan leeyahay oo hadda 8 sano jira marka 8 sano wiilka jira ilaa uu jaamacad ka dhigto Soomaaliya ma joogaysa jaamacad ka dhameeyo ilaa waa inaad la joogtid markuu dhameeyana hadda adiga iyo dhakhtarka ka agtay kari marka
reer Soomaaliya oo laabanaysa barwadanka iska iimaanso iska joog waxaan idin sheegayaa wiilkuna Soomaaliya wax barasho fiican buu ka helayaa dhakhtar fiican oo Soomaaliya hadda waa jooga runtii Soomaaliya waxay gashay waxaad kala guuray waan ka guuray colaad waan ka guuray nabadgelyo daro waan ka guuray dhibaato iyo colaad iyo isdil waan ka guuray challenge kasta iyo mushkilad kasta oo wadan soo marka mar walba waxaa la socota fursad opportunity la socota opportunity la socota waxay ahayd markaan qaylinay dadkii loo soo jawaabay dadkii ugu horeeyay waxay ahaayeen wadanka leeyahay Turkiga كور واحد لو ينمو مدحوينها جولة جنوبي إسماعيل رجال لو ينمو كبعد واحد لو ينمو الوزاري وذاك تركيا أردوغان وحي من الصورة والتعهد سي يناك سي ويوم ما أنتنا وحكاها يا صوماليا حول آل وراسم أو أنسلايا هاي صوماليا ويبدل إساه يعني forever صوماليا آل وبدل ميسا تركيا على بدل حاولوا بأن يهدبنمو الصومالي نمو ودكين تاسو برمك وقاريا إذا ما تصهروا وقارسان السلام عليكم ورحمة الله barnaamijka ayaan soo gaarnay shabakada calanka oo maanta oo dhan idin soo tabinaysa xafladda weyn ee lagu soo dhaweynayay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Gaas ayaa ku soo dhamaatay fagaaraha weyn ee lagu qabtay ayagoo ka soo qayb galay bulsho badan mar walba kala socda shabakada caalamiga iyo TV-geeda barnaamij walba ee ka dhaca magaalada Oslo waxay idila socodsiinayaan anigoo ah wariye Wiil Jallan sidaas iyo nabadgelyo